kulan wanaagsan ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo caalamka waxaad ka daawanaysaan warbaahinta raadsan qodobada aan idiin haynana waxa kamid ah filla Soomaaliya waxay u jawaabtay dhinacyada mucaaradka madaxweynaha raadinayay waxaana ay sheegtay in wali dalka madaxweynuhu ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal raadinta beesha caalamka ee isku keenida Soomaalida kala aragtiyada duwan maxaa laga filan karaa warbixin ayaan idiin haynaa halis weyn oo Soomaaliya ka soo wajihi karta kiiska badda ee kala dhaxeeya Kenya taasi oo dacwadda kiiskaasna bisha soo socota la dhageysan doono Shariif Xasan Sheekh Aadan oo weerar afka ku qaaday hoggaanka nabad iyo nolol iyo senator Cabdi Qaybdiid oo difaacay dibandaabiyada siyaasadeed ee markan haysata madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor iyo dib u soo nooleynta awoodii ahlu sunna wal jamaaca golaha ammaanka qaramada midoobay go'aan ayay ka gaarayaan xaaladda murugsan ee Soomaaliya howlgal ciidamada ugu daateen goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Daacish iyo Al-Shabaab oo laga sameeyay Puntland Ethiopia oo garabkiisa ciidilaysay madaxweyne Farmaajo iyo hadalkii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee niyadjabka abuuray dibadana waxa ugu dooron iskaashigii Turkiga iyo Pakistan ee dhinaca militariga ku salaysnaa oo bilowday